لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرح مدعوينين أستاذ الوزير شيخ عبد القادر علي بغدادي، وزير هوري وزير صادق، جنرال قرد خليه هوري عيدن كقلب كسيدة، قدوميها الجاهلية دا سوماليات دالك التركية سلطانكا قدوميها جامعة السيمت مدحضة الشرفة له هوينكا بعض الصحافة iyo fanaaniinta intaba ka soo qayb galayaasha walaalayaal habeen wanaagsan ayadoo aan ba isleeyahay inay tahay subax wanaagsan in aan ka bilowno qoladeena xamar ka timid loo cudur daaro waa marado habeenku oo sax gaaro waqtiga waa iska qaldamay marka hore waxaan rabaa anoo magaciina ku hadlaya dhamaan ka soo qayb galayaasha inaan u mahad celiyo qabanqaabiyaasha xafladan sharafta badan ku qabanqaabiyay magaca jaaliyadda galmudug laakiin waxay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed sida uu sheegay gudoomiyaha jaaliyadda ee dalka Turkiga. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo ka soo qaybgalayaasha ka yimid meelo ka baxsan magaalada Istanbul runtii oo safar dheer u soo galay inay yimaadaan xafladeyda soo dhaweynta ah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa oo magaalooyin kale ka baxsan magaalada Istanbul uga soo safray aad iyo aad baa mahadsantihiin. walaalayaal marka hore waad sharafteen ka soo qaybgalkiina waad ugu sharafteen waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantihiin waa dareemi karaa dhowr saacadood oo waqtigiina ka mid ah magaaladan aad u kala fog inaad siisaan uguna sharaftaan aad iyo aad bay agteeda ugu qoran tahay waan idinkaga mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan kaloo idiin sheego maadaama la sheegay halkan inaan 4 sano la soo dhaafay mucaarad ahaa khudbadaydu caawa mucaarad iyo muxaafid ma aha waa khudbad Soomaaliyeed oo ku aadan maadaama aan u dabaaldegayno 60 iyo guuradii ka soo wareegtay xornimadeena inaan dib isu la qiimeeyno wadciga maanta dalka ka jira. dabcan waxaan idinku hambalyeeynaa oo isugu wada hambalyeeynaa 60 iyo guuradii xorriyadda Soomaaliya ka soo wareegtay ee usbuucii la soo dhaafay aan wada dabaaldegnay ha ahaato gobolladii waqooyi 26 Juun dalkan walaalahana ee Djibouti 27 Juun iyo 1 Juulaay oo ahaa xornimadii koonfureed iyo midnimada labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliya. mar haddii aan u dabaaldegayno 61 sano kadib waa inaan qiimeynaa isla fiirinaa xageenu taaganahay. qofka markuu xanuunsan yahay uu dhakhtarka tago waxa ugu muhiimsan ee la rabo in la fiiriyo oo la qiimeeyo waa xanuunkiisa. haddii la ogaado xanuunkana daawadu way sahlan tahay laakiin haddii qofku isku qanciyo in xanuunka hayaa markii loo sheego kadib uu ku filan yahay qandhiyo jabiye ma daaweynin xanuunka ee uu qari ama waqti yar buu la tacaalay. in badan oo naga mid ah ka war haysaan duruufaha aan soo marnay 61 sano ee la soo dhaafay dalka Soomaaliya. meesha uu maanta marayo waxa weeye labadii gobol ee dalka Soomaaliya leeyahay laga sameeyay waa waqooyiga iyo koonfurta inuu kala maqan yahay muddo 30 sano. qof walba oo naga mid ah uu og yahay duruufteedu sida ay tahay. gobollada waqooyi waxa ka jirta dawladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland oo si de facto ah sida runta ah ka taliya gobolladaas laakiin sharciyada internationalka way ka maqan tahay. gobolladii dhulka koonfureed ee Soomaaliya inta badan waxaad ka war haysaan in badan oo ka mid ah ay gacanta ugu jirto kooxaha al-shabaab. inta soo hartayna dawladda federaalka ay ka talisana waxaa lala daalaa amni darro iyo maamul xumo baahsan. 61 sano kadib dawladnimada Soomaaliya waa midaas aan haysano
ogolaasho waa midaan haysanin ogolaasho dhammaystiran legitimacy waxa la yiraahdo si dawlad sharciye dhammaystiran u hesho waa inay awoodaa inay hubka iyada gacanta ku haysaan taasina inaysan jirin waa isla ognahay dabcan arrintaas aan idiin sheegaya waa qiimeyn wadcigeena hadda ku saabsan ma aha ama mucaarad ama muxaafid aragtidiisa ma aha maxaa sabab u ah sida maxaa sabab u ah marka dhibkaas hadda jira ee wadcigeena ku saabsan yahay sidaas loo daaweyn karaa wax walba daawo ayay leeyihiin hubaal laakiin dadaal ayay naga rabtaa annaga dhan si aan u gudubno xaaladda aan ku jirno qodobka koowaad ee aan isleeyahay haddii la weydiiyo la yiraahdo maxaa lagu daaweyn karaa waxa uu yahay fahanka aan dawladnimada ka haysano cudurka ugu muhiimsan oo haystaa wuxuu yahay fahanka aan dawladnimada ka haysano dawladnimada waxaan ka aaminsanahay inay tahay wax khuseeya siyaasiyiinta kuraasta ku fadhisa hadda waxaad moodaa in fahankaas isbedelaya laakiin qofka Soomaaliga ah dawlad markuu maqlo waxa ku soo dhacaya siyaasiga kursiga ku fadhiya laakiin waa bilcagsi dawladdu waa waxa isku haya mujtamaca dhamaantiis oo saameeya nolol maalmeedkaaga hadduu aan lahaa caafimaad waxbarasho amni cadaalad wuxuu saameeyaa dhalashada iyo geerida adduunka waxaa loo qoraa qofku markuu dhashana shahaado dhalasho markuu dhintana shahaado dhimasho loo qoraa intaas inta ka dhaxaysa ayay saameysaa dawladnimadu laakiin fahanka aan dawladnimada ka haysanay maadaama 61 jir aan nahay wuxuu ku salaysan yahay inay dawladnimadu tahay wax qofka siyaasiga khuseeya qodobka muhiimka ah waa in dawladnimadu waa awood waxayna tahay cidda kaliya ee si sharci ah u adeegsan karta awooddaas waa mid aan idin sheegayay laakiin dad badan oo Soomaaliya wali siyaasadda waxay ka arkaan position dabcan fikirkii uu keenay dawladnimadii Soomaaliya 61 sano waa aniga idin sheegay 30 sano waa 30 kan sano oo hadda burburka iyo kala maqnaashaha aan aadi u maqnayn 30 sano kamid ah 60kii ilaa 69kii intii hore dimuqraadiyaddu ay jirtay 22 sano kamilana waxaan faraha la galnay howl dheer oo aad moodo runtii in ay tahay in dawladnimada laga dhigay qof waa meesha aan isleeyahay waxa ugu muhiimsan ee qofka Soomaaliga maalin walba in lagu baraarujiyo uu baahan yahay waxa ay tahay oon arkaa marar badan oo kamid ah marka qofka Soomaaliga oo ila kul aragti walba uu qabo wuxuu ku warsanayaa walaalow maxaa mucaarad u tahay markaad weydiiso tira qadiyad hebel ka waran dawladda iyo aniga yaa ku saxnaa adiga ku saxnaa koo qadiyad hebel dawladda iyo aniga yaa ku saxnaa adiga ku saxnaa qadiyad hebel aniga iyo dawladda yaa ku saxnaa marka maxaa kelmadda mucaaradnimada laga yaabo qofku inuu iska dhigo waxay ka timid marka oo rabaa inaan idin sheego in mucaaradnimada laga cararo mucaaradnimadu waa qayb kamid ah dawladdu waa muxaafid iyo mucaarad sida wadaadta idin sheegay musharax madaxweyne Ustaad Baghdadi laba garo oo iskabayo way baarlamaankan wada dhex fadhinaa qof qoraysitaa ma jiro mucaarad qofka mucaaradka oo aragti ka duwan buu qabaa example hadda waxa aad loo sheegay arrinta qalbi dhagax ku saabsan waxaad ogtihiin arrinta qalbi dhagax ku saabsan dawladda dhiibtay dawladdu markay dhiibtay guddi uu ka tirsanay wasiir madaxweyne musharax madaxweyne Baghdadi iyo rag kale loo saaray inay baaritaan ku soo sameeyaan warbixinta guddiga markii la akhrinayo baarlamaanka laga akhriyay ayaan khudbada ka jeediyay laakiin haddii aanan annagu sheegi lahayn inay sidaas wax u dhaceen waxay ahaan lahayd case qarsoon maalin walba oo sidaas u asnaado marka waa iskaabaya muxaafidka iyo mucaaradku ilaa marka dambe uu ku qasbanaado muxaafidku inuu ama arrinka runta ka sheego ama uu ka runto waxaad ka waraysaan ilaa maantay case-ka qalbi dhagax dawladda federaalka inaysan ka jawaabin madaxweynaha hadda waqtigiisu dhamaaday haddii la weydiiyo oo xafladu qabanayna shardiga koowaad ee ama saxaafadda ama qofku la shirayo uu sheego waxay tahay inaan arrinta qalbi dhagax waxba laga weydiinin maadaama ay tahay arrin la og yahay gafka ay dawladdu ku gashay case-kaas waa hal case oo kamid ah laakiin caseska dawladnimada marka waxaa isku xiran qofka Soomaaliga madaxiisa ku xiran 22 sano xilliga militariga mucaaradadu waxay u dhigantay in ama lagu dilo ama lagu xiro waxaa laga yaabaa marka qofka la yaaban inaad mucaarad tahay oo diidan inuu adiga ku baqayo isleeyahay ama la dilaa qofkan ama la xiraa waxaan rabnaa inaan idin sheegno dawladnimada Soomaaliya arno waa dawladnimo la wada leeyahay
ودولة نمد إنتنا إن بدنا كمل الرجالات كيبيد قوة هوس نوشين ودولة ديمقراطية والرأي جاء هذا وعبير كرت لكن أنا كي كليا سعنية مت كلام سعنية ومت كي بربور ككين هذا بقى سوماليا ده أمان تجوجنا سي ماشي جوجته وكعناه هنوبهنا هاي إن نكوهشينا هنانك دولة نما ينوبهنا dad badan oo idin kamida oo naga mida dawladda hadda jirta waxa la yiraahdaa inaad ka waraysaan oo aaminsanay dawladda federaalka ee Soomaaliya dad badan oo waxa jira qaba inaysan federaalku wax fiican ahayn laakiin si aan taas u gaarno doodaas hadda ma gaarin hadda constitution-ka noo yaala heshiiskii bulsho ee ugu dambeeyay la gaaro wuxuu dhigayaa inay dawladdu ahaato dawlad federaal dawladdaas federaalka ah hanaankeedii iyo qalfoofteedii hadda waa la sameeyay waxay u baahan tahay fulinteeda marka haddii aad qabto aragti ka duwan waxay u baahan tahay in axsaab siyaasadeed la dhiso fatwa la qaado aftidaas la qaadana aad ku sheegto in nidaamka federaalka ah dawladda Soomaaliya uu soo uroonayn ee u urooyahay nidaamka unionista ama centralka laga maamulo centralista la yiraahdo haddii kaas aad ku qanacsan tahay markii la gaaro fursadeeda si laakiin inta ka horeysa waxaan u baahanahay in aan dhamaystirno dastuurka hadda noo yaala waxaan u baahanahay in aan dhamaystirno oon tayeyno cadaaladda waxaan kaloo u baahanahay amni lagu kalsoon yahay oo muwaadinku ku seexan karo weli waxaan ka waraynaa in dad badan oo kamid ah dadkeena Soomaaliyeed markii askari ay maqlaan ama boolis ahaada ama military ahaada ay cabsi dareemayaan meesha adduunka kale markii wax ka lumaan laga yaabo inaad booliska u report garayso waxaan u baahanahay kalsoonida dadka ka dhaxaysa iyo askarta inaan soo gaarsiino meeshaas طبعا macnaheedu ma aha in askarteenu xun tahay laakiin discipline-ka iyo tababarka iyo aqoonta ayaa heerkaas u baahan waxa aad iyo aad muhiim u ah runtii oo aan leeyahay dadkiina iyo dad badan oo kale oo Soomaaliyeed qoysa wuxuu yahay in la helo qaab dadku ay siyaasadda uga wada qayb gali karaan waxaad ogtihiin 20 sano la soo dhaafay arta sidii loo dhisay waxa systemka doorasho ee dalkeena ka jira lagu saleeyaa 4.5 taasoo keenaysa in kursigu uu qabiil leeyahay kursigaas qabiil kalena waxa soo xuli jiray oday dhaqameed 135 qofood ah waa la kordhiyay 14,000 qof laga dhigay sanadkii hore haddana waa la kordhiyay 28,000 qof ayaa laga dhigay taasoo keenaysa in aysan dadkaanu ka qayb qaadan karin kuraas badan oo ay jeclaan lahaayeen inay ka qayb qaataan haddaba waxaa looga baahan yahay dawladnimada Soomaaliya inay diyaariso hanaan dadku ay uga wada qayb qaadan karaan siyaasadda taasoo macnaheedu tahay in dalka la gaarsiiyo qof doorasho qof iyo cod ah si doorashadaas qof iyo codka loo gaarsiiyo waxaa loo baahan yahay dalka in axsaab siyaasadeed laga sameeyo hadda waxaa jirta axsaab ku meel gaar ah weli dadka Soomaaliyeed waxyaabaha aan arkay waxa kamid ah perfection-ka jecel yihiin waxa aad u fiican xisbi siyaasadeed ee inta samaysma maanta meesha ugu fiican tagayaa ma jiro haddii aan example u soo qaadano waxa noogu dhow waa hadda Somaliland oo doorasho ay ka dhacday maalmo dhaweed ama bil ka horan malayna inay ahayd waxa ka jira 3 xisbi siyaasadeed mar baa la soo sharciyeeyay oo la xiray oo la yiri Somaliland 3daas xisbi waxaan kama jiri karaan maalin dhaweed waad arkaysaa sida loogu tartamayo kuraasta ama ayagoo ah heer kore ama ayagoo ah heer degmo intaba sidaas loo gaarana waxaan u baahanahay intiinaan inaad axsaabta hadda jirta ku biirtaan طبعا aniga waxaan ahay oo hadda in meeshan aan laga sheegin xogayaa guud xisbiga UPD kaasaan ugu marti qaadaya intii ogol intii aan ku qanacsanay ruuxeeda ma ka didsani waxaan rabaa inay axsaabta kala galaan inaad axsaab gashaan waxay fududeynaysaa siyaasadda inaad ka qayb qaadataan waxay fududeynaysaa in siyaasadda la wada yeesho waxay fududeynaysaa inaad siyaasadda maal gashataan siyaasadda kaliya ma aha inaad dhageysato mustaqbalka kiraam inta ka noqoto aad tira siyaasadina waa la ii diidan yahay haddii aadan ogolayn magacaaga iyo maalkaaga iyo juhdigaaga inaad xisbi ka mid ah xisbiyada ku darto ku raba ha ahaado kayga ha ahaado ama kuwa kale waxaad diyaar u tahay inaad banaanka ka joogto siyaasadda si loo helo marka arrintaasi adinkuna waa inaad bashaan annaga dadkeena siyaasadda ku jirana waa inaan ka shaqeynaa in siyaasadda la furo waxaa loo baahan yahay dabcan in la abuuro shaqo dawladnimada soo socota waxaa ka hadlaya hadda electionkeeda loo socdo waxaa loo baahan yahay
in la kobciyo aqoonta iyo xirfadda aqoonta qaybteeda akademiga ah iyo xirfadda qaybteeda farsamada ah ee u baahan dalkeenu u baahan yahay aad iyo aad waxa uga warhaysaan in magaalada dalka Soomaaliya in badan oo kamid ah waxyaabaha xirfadda oo dhan ee gacanta laga qabtaa ay noo qabtaan dadaan Soomaali ahayn waxaan u sheegay suldaanku ayaan maleynayaa galabta dhulka Soomaaliya dhul badan oo kamid ah iska dhaaf in korontada iyo farsamada iyo hoteelada servicekeeda naloo qabtee hadda waxaa la qabtaa geela waxaa ilaaliya dadaan Soomaali ahayn sida Oromada oo kale mar haddaan marayna in geela naloo ilaaliyo oo aan shaqadeedu in badan oo kamid ah ay noqotay jaad iyo tubaako inaan ku hoos cunno quraca hoostiisa mujtamac naloo yaabanahay runtii marka mujtamacaasaan ka dhalanay waxa aan isku haysano waxa laga yaabaa mar dhow inay faraheena ka baxaan mujtamac dependency-isu ku tiirsanaantiisu ay aad iyo aad u badan tahay yaan nahay hoteelada oo magaalooyinka waaweyn ku yaalo oo hotel 5 star ma qabnay stariskoodu fiican yihiinna kulligood waxaa nadiifinta iyo waitress-ka iyo kabalyeeriga haysta dad ama Kenyaana ama ajnabi kala arrintaas marka waxay u baahan tahay in inta lagu baraarugo laga shaqeeyo runtii dawladnimadu aniga fahamkayga way markaan waxaan idin kala hadlayaa ma aha been iyo propaganda ma aha waa wax quseeyo nolol maalmeedka qofka Soomaaliga ah nolol maalmeedkaaga quseysa adigana waa inaad serious u qaadataa annagana aad serious nagu la xisaabtantaa waana inaadan nagu la xisaabtamin inta masawir ee aan soo saarnay sanadkii hore la soo dhaafay laakiin aad la weydiisaa shaqadii ama hawshii naloo dirsaday inta ee aan ka qabanay waa mahadsantiin dhammaan inta halkan ka hadashay aniga xildhibaan waxaa la ii doortay hadda teeramkaan dhammaaday waxaa ii weheliyay siduu Sheekh Cabdiqaadir sheegay musharax madaxweyne hal sano oo xildhibaankii igu horreeyay uu kursiga ka baxay xildhibaan Abdi Maxamed Abdidoon Allah u naxariistay iyo 4 sano markii la isku daro 5 sano kursiga jooga runtii waxaan ilaahay uga mahadinaa hadafkaygu marnaba ma ahayn kursiga iska fadhigiisa laakiin kursigu waa inuu hadaf leeyahay hadafkiisa saddexdii hadaf ee uu sheegay musharax madaxweyne Baghdadi ee ahaa inaan sharciyo wax ka dejiyo kana doodo iyo inaan xukuumadda kor joogteeyo ilaaliyo iyo inaan dadka aan matalayo oo ama deegaan doorasho ah ama dad Soomaaliyeed oo kale dulman ah dad badan oo Soomaaliyeed oo dulman ah oo u istaagaa ma aha qalbi dhagax kayska jawaari taagneenoon ka dagaalanay bariir dad ugu laayaan ka dagaalanay Abu Mansuur Robo dhibka loo geystaan ka dagaalanay kuweysas kale oo tiro badan aan ka dagaalano ka hadalnay dawladnimadu waxay kale u baahan tahay inay soo korto oo marar badan oo kamid ah dad badan oo raba inay dawladda soo galaan waxaan arkaa qofka Soomaaliga ah markuu dawladda kala hadlayo qofka siyaasiga laba shay uu ka aaminsan yahay qof dadka xala oo xoolo haysta oo lacag haysta oo wixii haysta dawladnimaduna saas ma aha haddii qofkaas uu sameeyay asaga ku eg tahay laakiin siyaasadda iyo sideedu saas ma aha waxa kale oo aad iyo aad loo aaminsan yahay qof aan diin lahayn oo macsiloowa oo haduu arko iska tunto oo wax xun sameeyo oo ayadana sidaas maayo aniga iyo Sheekh Abdulqaadir Ali Baghdadi iyo dad badan oo ka midna dad muxaafidiin oo weli diinta iyo dalka iyo dadka u taagan inaan aaminsana marka runtii marar badan oo kamid ah way ku xanuujinaysaa marka si guud loo yiraahdo oo aragto qofku la siyaasiyiintu tuugo way hadaa aaminteena siyaasiyiintu tuugan yihiin ama aad ku taageerto ku garab siiso berri adigana way kugu soo laabanaysaa ama markay xadaan basaad u xisaabtanta male marka waxaa laga rabaa iyadana in runtii aniga hadafka aan ka shaqeynayay inta xildhibaanka ah ama haddaan wasiir ahaa waxay ahayd dawladnimadu waa adeeg dad waa inaad dadkaaga u adeegtaa waa khidmo bulsho yani ricaayatu diini wa dunya weliba markii oo khaliifada dhanka islaamka laga hadlayo qofka waxaa laga rabaa not only qofka mas'uulka ah inuu adduunyada bisuu khidmeeyo dadka arrimahooda diintana inuu ka kaalmeeyaa loogu talagalay labadaba laakiin haddana midka siyaasiga bis dhaxno waxaa loogu talagalay inaad dadka adeeg gaarsiiso dadaad matashaa biyay u baahan yihiin
يعني أدينك هذا ضد بدن وإذا كم إذا مركل يراد بيال قضي أما عيال على قضي ضد بدن وفهم كرنا جد لكن مركا تكتب ديجان كنتم كيلومتر أفرتن كيلومتر بيال على دور شني لباتن كيلومتر بيال على دور قفك وسيلو جايو أيام ده حدث ميل بانتقني عيال بروجكت عيال كقضني مركا نمبر نور ويرال كان يعني كبح جرني صبح كان هال كان كبحينا مقالة هذا بان عاو كوينينا وكسر آمنينا أنتك مخربك كلا أمل عشها وقاب يعني شو ينينا هال كان وحلا وضعنا وحلا غيا وعفرت اللي تروا بيها إليهين رتوب عقادك وعاجك أفر عاو من لباتنا وسديت اللي تروا بيها هو وضع قف كاسو وحول سيسو عدي وحكولوا أفر لباتنا ساعة وقوان باقي marka aad fiiriso markaas aad fahmaysaa biyo in la qabto shaqada ay leedahay waxa kale oo fahmaysaa ilmahan iskool dhigan markii laba fasal aad kala shaqayso inay wax ku dhigtaan aad gaarsiiso ama MCH yar oo hooyada iyo dhallaanka baadiyaha jooga ee aan daawada arkeen ama waxnaba arkeen aad ka shaqayso runtii in badan oo idin kamid ah halkan joogo oo jaaliyadaha dibadda aan arrintaas shaqo badan bay ka qabtaan dalka Soomaaliya waa noo wada baahan yahay dhamaantiin هذه أدبان يكيك معاد علني يا قربستان قاعدين موجسين وحان رنتي مبادئ ذي ذاني جايين هذه مسؤولية هذا يسكونا إلهي وبعضه لابو إن عدد كاغان أو عشرة وآذو قاتو إن عدد مسؤول كته وآذو قاتو إن عنق باهن ورنتي ما بدو إذا حنصوم مرة سفر كي قاسين عدد كاغان أركين على غياب مالهم يحمر واقعي ودحيس markaan iskoolaan ka soo furnay markaan iskoolka furaynay waxa waqtigan June July badxirna jira dabayl baa jirta dabayshaas jirta iyo dhulkaas u dhaxeeya waa bacad dadka ku nool ilmo yar yar jooga marka ilmahaas dabayshu carrada dhan ay wadaa waxa ku soo dhaca qofkaas halkaas ku nool qofka mas'uuliyadda u haya in aniga oo biyo ka sugaayo oo wixii ka sugaa oo xildhibaan oo ugu maqan baarlamaanka Soomaaliya runtii barar badan oo kamid ah marka ma aha xildhibaanku wax lagu raaxaysta ma aha ama lagu naso sida dadka qaar aaminsan yihiin waa shaqo ku sugaysa intii Ilaahay naga soo waafajinay Ilaahay uga mahad celinayna intaan ka gaabinayna waxaan ka raali gelinaynaa dadkii aan ka gaabinay waana dadaalina hadii Ilaahay yiraahdo marka soo socota hadii Ilaahay caraf noogu daro waa dadaalina aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mar kale habeenkan dheer ee aad siiseen saaxiibkay murashax madaxweyne Baghdadi ay la kaftamo wuxuu yiri warniyo waxaan xaflad ugu dhigayo xildhibaan waa ka badan yihiin maxaa ku hoos jira marka waxaan idhi hadda sanadkan soo ma socdo laakiin waa sii diyaar garoobay marka hadda sanadka adaa iga horeeyo asaga u daayo marka diyaar garowgaas aad qayb ka tihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka dambe aan idin soo laabanaya anoo wax ka weyn raba markaasaan idin imaanaya aad baad u mahadsantihiin